xarakada al-shabaab waxa ay sheegatay inay ka hortageen weerar ay reer galbeedku ku qaadeen degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose siday al-shabaab ay warka u dhigeen. xasan maxamed aweys ayaa warkan inoo faafahinaya. mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay weerar ay ciidamo shisheeye aan la ogeyn waddanka ay ka soo jeedaan ay ku qaadeen magaalada Baraawe gobolka Shabeellada Hoose saacadii ugu horeeyay maanta oo Sabtiya. bartilmaameedka ciidamadaasi ayaa waxa uu ahaa guri ku yaala magaalada Baraawe oo dhaca koonfurta Soomaaliya. ciidamada weerarka ku qaaday Baraawe ayaa la sheegay dhanka badda ay ka galeen magaalada oo doomo ay wateen ay ka degteen markab dagaal oo ku sugnaa xeebaha dalka Soomaaliya. sidoo kale weerarka waxaa ka qayb qaatay diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriska. afayeenka dhanka howlgallada u qaabilsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab Abu Muscab ayaa sheegay in mid ka mid ah dagaalamayaashooda weerarka lagu dilay. dadka deegaanka magaalada Baraawe ayaa laga soo xigtay in ay ku soo tooseen dhawaqa rasaas aad u xoogan ka hor inta aan salaada subax la galin. mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka Soomaaliya oo la hadlay wakaaladda AFP ayaa sheegay in hadafka weerarkaasi uu ahaa beegsiga shakhsiyaadka ajaanibta ah ee al-shabaab dibadda uga timid oo la rumaysan yahay inay ku badan yihiin magaaladaasi. warar kale ayaa xaqiijinaya in weerarka ah 2 diyaaradood oo nooca helicopteriska ay ka qayb qaateen. Abu Muscab oo dhowr wakaaladood oo dhanka warbaahinta caalamka la hadlay waraysana siiyey ayaa sheegay in mid ka mid ah dagaalamayaashooda uu ku shahiiday weerarka. uu sheegay in cadowga Ilaahay ay ku soo qaadeen uuna ula jeeday ciidamo ka socda wadamada reer galbeedka, waa sida uu hadalka u dhigay. sarkaalka wata dagaalamayaasha al-shabaab ee Baraawe ku sugan Sulaymaan Abu Maxamed ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab oo goobta u soo degdegay ay u suurtageli weyday in ay gacanta kaga dhigaan askartii howlgalkaasi ka geysatay gudaha magaalada Baraawe. waxaanan caddeen ilaa iyo hadda haddii weerarka saake ka dhacay Baraawe uu jawaab celin u yahay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada Nairobi, mas-uuliyaddeeduna ay sheegteen. sanadihii ugu dambeeyey ciidamo Maraykan ah iyo kuwo Faransiis ah ayaa weeraro waxa ay ka fulinayeen xeebaha waddanka Soomaaliya. 4 sano ka hor sanadii 2009 ciidamo commandos ah oo Maraykanka ka socda ayaa waxa ay magaalada Baraawe ay ku dileen Saalax Nabhaan oo ka mid ahaa saraakiisha al-Qaacida ugu sareysa gudaha qaaradda Afrika.